marka hore iga gadoomo salaan suuradeedu waan saamigeedu sareeya salaan siinaysa male salaan sare la gaabiyo bilowgeedu suna tahay soo celinteeduna waajiba salaamtii islaamkan caada sare ku sideen taasoo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantaas qiimaha iyo qaayaale kadib anigoo ah ra'iis Cumar Maxamed kana mid ah qalinjabiyaasha sanadkan ee dugsiga Salaama waxaan maanta idin soo jeedinayaa qiimaha iyo halganka suugaanta taas ee la yiraahdo shicir wadada guusha maanta waan taaganahay maalmihii mudba aan sugnay waa mid mirihii dadaal muraadkeennii u horeysay 10 sano oo dheer tacliin baan u taagnayn fasal iyo imtixaan 10 jeer baan u sabarnay talaabtii hore waan qaadnay tamari rajo ayaan wadnaa tartankana waan ku jirnaa dibkan la kulunay walay dadaal ayaan kaga gudubnay dulqaad iyo samir badan waxaan la soo marnay dariiq dheer waxaan marnay waqti adag walbaar iyo urdo la'aan waqti aan seexanin habeen waa wixii maanta la jecel yahay habeenkii aan urdo seegnay hamuuntiisa wanaaqan laakiin maanta iftiin baa jira waxaan taaganahay meel sare go'aan adag baan qaadanay garasho iyo dadaal isku darnay guusha aan maanta taaganahay guuleena ay ka timid waxbarashadu waa furaha guusha waa wadada horumarka nolosha cid laguma hormaro cilmi baa lagu horumaraa maanta anaga waxaan nahay mid la koray aqoon iyo anshax maskax iyo mustaqbal wata muuqaal guul leh u jeeda maanta waxaan nahay astaan u taagan kuwa dadaalay dhalinyaro aan ku dayano dadaalka halaakenin waalidiinteena waan u mahadnaqayaa waligood way nagu garab taagnaayeen macallimiinteeduna waa halbowlaha murti iyo hanuun bay nagu kiciyeen macallimiintiina hageysay waad mahadsantiin dhammaantiin waadna garab istaagteen guusheen qayb baad ka tihiin waan ku faanaynaa maanta inaan ka mid nahay kuwa guuleysta qalinjabintu aan ku faraxsannahay waa bilow cusub ee nolosheena qalinjabintu waa maalinteena waa mirihii aan beernay waa abaalgudkii juhdigeena waa bilo sharaf oo qalbi degtay fasalkii 12 waan dhameynay furaha aqoontan helnay fursad kasta waan u feejiganahay farxad iyo kalsooni baan la taaganay